Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayaal aad baan idin salaamay dhammaantiinba. Soo dhawaada Soomaalida Trader. Maanta waxaan insha Allah tacaala idinla wadaagi doonaa bal qaabka loo isticmaalo MT4-kaaga telefoonkaaga sida chartkiisa loo isticmaalo ama traderada loogu analyse karo insha Allah tacaala wax ku saabsan ama chartiga looga dhigto si nadiif ah insha Allah tacaala idinla wadaagay haddii la yidhaahdo. Anu badanaa kama isticmaalo trading view waxaas la yidhaahdo baan ka isticmaalaa oo runtii aad features badan ka helisid marka leerna ama marka telefoonka loo eego qof inuu computer haysto aan badan kula talina laakiin marka qaar wuxuu qoran qofka ma haysto telefoon markasta ma haysto maxaa xala ma haysto markasta computer maxaa xala telefoonka inaad trade kala socdaan raba marka qaarkood kan oo kale waad isticmaali kartaa laakiin se recommendation ka fiican wuxuu noqon lahaa inaad isticmaashid trading view-ga insha Allah taala description post ay dhigi doona trading view-ga sidoo kale waxaan tusi doonaa sida chartiga loo habaysto sida loogu sawirto support and resistance trend line-ka time frameskiisa iyo chartiga oo isku qasan imika haddaan ku tuso chartiga waa noocan bilowga waa noocaas oo kale weyn waa noocaas oo kale lacag kale haddaan ku tuso kala tusaaraan waatan lacag kale haddaan ku tuso kale wada noocaas marka clear maaha lacagii clear maaha waa noocyadaas wax oo creditskii laynashii wixii oo dhan ba isku wada dhex jira marka bal qaabka loo saxo insha Allah tacaala isleegi doonaa loo habaysto waaya haddana guda galo marka qaabka loo haysanayo si xaggaad ku dhufanaysaa xaggaa markaad ku dhufato halka ay sitan ku qoranta tegaysaa markaad ku dhufato xagga yar halka ay sitan ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa sitan markaad ku dhufato waxaa kuu soo baxaysa halkan aad kusoo baxaysa meeshaas ayaa kusoo baxaysa marka waxaan iska qaadi doonaa halka display high and low meesha ku qoran iska qaadana insha Allah tacaala show volume volumes meesha ku qoran tahay iska qaadana insha Allah tacaala waayahay video splitters meesha ku qoran iska qaadi doonaa ask price line kaas noo iska qaadi doonaa dileeda inta markaa iska qaadi hadii chartiga sana noqonaya xogaa more clear ka soo noqon sida hore marka si aan daba habaysano inta ugu muhiimsan oo kala raantiya ayaan tegi doonaa marka isla qaybtoon baan kasii tegi doonaa dileeda sita kuma tegaysaa kasii dhaafaysaa waxaa tegaynaa meesha colors aan ku qoran tahay colors and stems waayahay agaan tegaynaa xaggaas kasii dooranaa waxaan ka dooran doonaa insha Allah tacaala green and black meesha ku qoran tahay green and black waayahay green and black meesha ay ku qoran tahay bar up waxaan ka dhigan doonaa greenka kaasaan ka dhigan doonaa kaas ayaan ka dhigan doonaa hadii la yidhaahdo waayahay halka ay ku qoran tahay candle bullish candle ama bull candle waxaan ka dhigan doonaa greenka aan tikhda si ahayn dhexdhexaadka insha Allah tacaala ayaan ka dhigan doonaa kaasaan ka dhigan doonaa hadii la yidhaahdo waayahay halka ay ku qoran tahay bear candle isaga red baan ka dhigi doonaa hadii la yidhaahdo red baan ka dhiganaa halka ay bar down ku qoran bear down meesha ku qoran tahay red baan ka dhiganaa isku ekaysi labaad isku ekaysiiso waayahay marka break percenta waa laakiinse weli gradiska waa jiraan si gradiska aan uga qaado marka waxaan samayn doonaa insha Allah tacaala waxaan tegi doonaa halkeeni sitin ka tegi doonaa kalaraantiyan dooran doonaa insha Allah tacaala backgroundkani waa black foregroundkanina waa white baan ka dhigi doonaa gradiskan waxaan ka dhigi doonaa black marka hadda waxoogaa clear ku noqonaya kaas wuxuu ku noqonaya hadda clear ku noqonaya nadarkiisa ma jeedo clear ku noqonaysa kaas ku noqonaysa clear
clear buu noqonayaa insha Allah tacaala. Marka anagu badanka kan la isticmaalo waxaan ku tusi doonaa waxaan isticmaalaa isagii oo white baan isticmaalaa white baan ka dhigan doonaa waayahay white baan isticmaalaa backgroundka white nooga dhig foregroundkana black nooga dhig greeniskana white nooga dhig wax kale ka bedelaysa kan lab size kata dhan unsi kan latiina ku noqon muxuu noqday markaas soo qeyb layer buu noqonaya ka layer maad aragtay filayaa halkaa layer buu noqonayaa layer buu noqonayaa soo qeyb layer buu saas kugu noqonayaa sidee chatkii caadiga kuu noqonayaa insha Allah. Marka waxaaga kala haddaan kuu tuso halkan saas haddaad arkaysid xagtii clear buu noqonayaa. Marka haddaad doonaysid inaad soo gashato kala tusaalaan halkan bartaar baad ku dhufanaysaa waxaa ku soo baxayaa horizontal line-kii oo kale waa supportan receipt sidoo kale halkan ku sawranaysaa horizontal line-kaagii oo kale ku sawranaysaa. Haddaad doonaysid inaad iska delete garto halkaas delete ku qorato ku dhufanaysaa. Haddaad iska erisid doonaysid xariiqdan iska erisid haddaad doonaysid baad dul xajinaysaa waxaad ku xajinaysaa sorry saas waad dul xajinaysaa kalarka kabacdi saasaad ku dhufanaysaa waad ku dul xajinaysaa markaad yaraysid pixels meesha ku qoranta meesha pixels ku qoranta tuu ka dhiganaysaa tusaale oo kale lamba soo siin marka way ku yaraanaysaa saas ku noqonaysaa wakaas inaad kor qaado kala doonaysaa anta bartana kale soo dhiganaysaa halkan tusaale hadda kasoo gasho kale marka suuq soo daato kale xagan establish ay soo dhigan kartaa haddana tusaale halkan soo dhigan kartaa waa daba wadan kara ilaa iyo waxa daba wada halkan oo kale gaadho soo daba dhigi kartaa halkan marka timid waa soo daba dhigi kartaa establish ka han dhigan kartaa de ilaa iyo halkaas saas soo daba wadan kartaa suuq la socod suuq marka la socod saas soo daba dhigi kartaa marka inaad fahanto wax badan ma filaya train haddaad train lana kula qaato waa kan train lane-kaaga kale salahaan haddaan train-ka leydi ka dhigo kale leydina ka dhigo qabo kale haatan bartan baad kasoo qabsanaysaa hoos baad uga soo jiidanaysaa isagaa sidoo kale edit garaysan kartaa inaad ku tusaan uma rabay insha Allah tacaala si fiican fahanteen baan filayaa qaabka loo analyse gareeyo suuqii clear looga dhigto suuqa clear looga dhigto inaad wax ka fahanteen baan filayaa insha Allah tacaala markaas marka waxbadan ka fahanteen baan rajaynaya insha Allah tacaala aad baan idin salaamaya casharaan badan baa noo soo socda sida waxaa noo soo socda insha Allah tacaala indicatorada baa noo soo socda wax kaloo noo soo socda edit wishlist baa noo soo socda waxay noo soo socdaa iyagana fadhalka oo kale casharaan badan baa noo soo socda isla socosho wanaagsan oo dambe assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan filayaa inaad chat-kaaga haddii taad ka dhigan doonto si clear sidoo kalena aad كان نسكرسين دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لي سلامية. هتطبع تريني فينا سواء كده description كنوسط أو أكتر سؤال برتا.